ninkuu warbiyaysiiyo markaasuu yidhi horta isukay sheego masuu yidhi markaan biyaha cabo ayaan iskala garan doonaa horta isukay biyahaysay waxaan isir ilaa lacagta la dhiibo ha hadli hadda waa cabnay 700 booyadood baynu hadda cabnay intaan halka marka la isku daro labada lacagayo alxamdulilah hadda waa hadli karaa bini aadan waxba ma deeqo bini aadan waxba ma deeqsin karo ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa waxaynu ka baryaynaa madar khayr qaba اللهم اقتنا مقيتا غيثا طيبا هنيئا مريئا صحا عاما إلهي هاي نسير إلهي هاي نصور عليه إلهي دولك هاي نوقف وجيه إلهي هاي نوبت بادية ددك يا دنيا أركوا ويهي هاي ضرورت وتاجنت هاي وتسي هاي إلهي ما ضحك قبل الرجال أنت أكذب هل كان وحان كنمي أمريكا دولة حكومة أنو كتر سنة هاي رئيس الوزراء كي محمد حسين روبلي يقرشيه مدحوينه يقرشيه مدحوينه محمد عبد الله فرماتشو وإن دتك باهن دمان أيه قرم دقدق اللي لقاره مركونه قرشها سان كسرني رئيس الوزراء هنا سدا عرقتان والنسوان ببحية وسيركي قدوميها النوع هاي بيلي ويا هيدن النصور عرنتي أي شقية شيء وقد يدي إن شاء الله يسوون الدعاء ديس ومركب ساكا ويسوون دعيني أنت كذب وها الله كوا فقسنا هاي وسير خديجة إن الناس سياسة إنكرك تذكرني وباهن إن الله أولياء واحترية يمحل الله ترية يعترية سؤالها هنا الإسويدي ما أنت وكله نكرر كنا وحكلها راح رجنوا يدي سهاد شرطان لورنشري ما أنت وكله قرمت بيوباهن تا سان runtii qaybtaana kaga daraya qaybta labaad xaaladdu waa ognahay inay culus tahay culayskaasna waxaa lagaga bixi karaa gurmad iyo iskaashi dalka oo dhan bay abaartu ka jirtaa dalka oo dhan baa roob la-aantu ka jirtaa oo dayrtii ay yaraatay dalka oo dhan baa biyo la-aani ka jirtaa geeska gees laakiin gadow waa usii daranta sababta ay ugu soo horeysay gurmadkana waa inay ugu sii daran tahay oo baahidu u daran tahay oo la dhimanayo sida keliyana sidaan sheegay waa isku duubni iyo dadaal iyo gurmad in lagaga baxo laba baaq ayaan u dirnay dadka Soomaaliyeed iyo caalamka labadaba waa laga soo jawaabay jawaabuhu iska raagraagaan oo waxa laga yaabaa inta procedure iyo nidaam iyo waraaq la sameeyo in dadkii sii dhibaatoodaan sababtaasaanu annagu intan yar aan ula soo orod waxaan u mahad celinayaa jaaliyadaheena dibadda oo iyagu mar horeba bilaabay shaqada haddana wada oo qoladan strong together ay wakiil ka tahay iyo inta gaar isu xilqaantay waxaan u mahadnaqayaa iyagana culimada oo aad u dadaalay waxaan rabaa in la badiyo dadaalka mar rabno in inaga oo joogna oo xay ah dadkoonu dhibaatoodaan dadkeenu inay dhintaan haddii qofkii xitaa noolaado oo aanu hal neef oo xoolo haysan noloshu way ku adkaanaysaa marka inta wixii la badbaadin karo la badbaadiyo dad iyo duuyo ayaan halkan joognay intaa marka laga gudbo waxaa nasiib darro ah maalin dhaweedna waa sheegay gobolkan gadow gobollada ugu qanisan dalku ku jira 6 degmo 5 ka mid ah webi amra garbahaari buu ugu fog yahay dhowr kiiloomitir u mara 6 degmo saas ta ugu fog waa taa garbahaari 5 kalena 4 kalena uba dhex maraa bal ka warrama gobolladii iyo isteediyadii aan webiba lahayn bal sawira waxaan inaynu ka guurno noloshan maalin walba haraadka sida kaliya aynu kaga guuri karnaana waa dawladnimo shicib waxaan waxba kama qaban karo dawladnimo iyo qorshe dawladeed iyo horumar iyo maalgelin iyo jihayn ayaa lagaga baxaa sababta dawladnimada laynoogu diidan yahayna waa sababta waxaa la leeyahay dadkani hadday helaan dawlad adag oo isku filan oo aloosan oo abaabulan waxay ka maarmayaan dad badan way isku filaanayaan
duniduba soo qaban kari mayso cadowgeennu ma rabo inaynu horumarno cadowgeennu ma rabo inaynu guulaysano cadowgeennu ma rabo inaynu halkaa ka kacno iyadoo xoolihii iyo webigii iyo baddiiba inay dhex marayaan bay doonayaan inaynu gaajo u dhimanno maanta waxaynu horseed inoo haysanaa waddo inay geyn karta halkaynu rabno waddadaa inaan laynaga leexin baan rabnaa waa ogtihiin kiiskii baddu meeshu marayo meel fiican buu maraya tiimkii ina matelayay looyaradii iyo madaxdii loo diray dacwaddii way ku jiraan ka hor dhici mayno go-aanka maxkamadda oo waa go-aan maxkamad ku jira laakiin waxaan qiraynaa dadaalka ay dadaalayaan abukaatayaasha iyo qareennada inoo doodaya iyo shaqada ay hayaan inay tahay shaqo fiican ilaahayna aynu uga rajaynayno guul idinkana ducadiinnii horena waa la aqbalay ducadiinna dambena in ilaahay dhulka iyo badda iyo berrigaba inoo badbaadiyo inaad sijaayadda ugu fadhiisataan ayaan idin farayaa hamoodina waxaa loo socdaa bad keliya baddaaban yarayno waa 100 kilomitire berriguna waa ku jiran sida keliyanu kaga bixi karnaa mar labaad waa dowladnimo waxaan rabnaa inaynu dowladnimadeena adkaysano dunida intayna la midaba waa iska jiraa meel kasta khilaaf yaro hoose ugu jiraa laakiin khilaafka yaro hoose dowladnimada ma gudumiyo oo ma burburiyo oo ma baabi'iyo geed kasta in gubtaa waa hoos taalla meel kasta oo binaad guriga labada walaalo ah dhexdooda waxbaa ku dhex jira labada walaalaha hooyadooda dhashay laakiin haddii waxa yara ku dhex jira ay dowladnimadoo dhan inaga dumiyaan oo aan baaba'no ma aqbalayno horeynu u soconaynaa dowladnimadeennu way inoo shaqaynaysaa waynu soo aragnay dhibaato inay nagu filan waynu soo aragnay qax waynu soo aragnay waynu soo aragnay qaybsanaan hadda waxaynu rabnaa oo ma nahay dowladnimo qarannimo midnimo iyo horumar sida keliya aynu kaga maarmi karno biyo dhaamis waa dowladnimo dowlad adag oo xoog leh oo ku filan dhaqaalaheeda iyo shacabkeeda iyo dadkeeda oo danaynaysa dowladaha qaar iska daa in dad haraad u dhintaane hal qof haddii adduunka dabadiisa lagaga xidho dagaal bay qaadaan yacni si ay u ilaaliyaan muwaadiniintooda sababtoo ah dowladdooda xoog badan hal qof haddii cumar bin khadaab wuxuu yidhi haddii baqal ama faras uu ku waxyeeloobo curaaq isagoo madiino jooga ilaahay anuu i weydiinaya qiyaamo citizeniska muwaadiniinta saasaa loo ilaaliya oo dowladuhu ilaaliya iska daa inay haraad iyo gaajo u dhintaan waxaan rabnaa dowlad sidaasoo kale marka dadka iyo dunyada lasoo dhaafo dhulka iyo berriga iyo baddaba ka fikiraysa waanay ku socotaa waddadeedii waa haynaa waddadii dowladnimada waa haynaa marka waddadu kaa khaldan tahayna waad garanaysaa marka waddada saxda aad haysana waad garanaysaa waddada saxdaa waxaad ku garanaysaa dadkii necbaa dowladnimada soomaaliya o dhan baa qaylinaya markaasoo ma aragta inaynu isxasannahay dadkii necbaa qarannimada iyo dowladnimada iyo rajada oo dhan baa qaylinaya habeenku wuxuu ugu bugdi badan yahay marka waagu soo beryayo waagii baa soo beryaya dowladnimada waddadeedni baynu haynaa ilaahay haynu ku sugo jidka aynu hayno waana guulaysanaynaa waxaan rajaynaynaa 4 sano kadib dalkan oo shidaal leh waa alkhasab hadda meel walba waa lagu sheegay shidaalkii hal ceel oo keliya ayaa 13 bilyan dhibic 5 bilyan oo barmiil ay ku jiraan oo badda hindiya aynu inagu leenahay 3-4 sannadood baana lagu soo saaray waxaasoo dhan baa laynoo diiday maalinta aynu waxaa la soo baxno aynu isku filaanno wax kaleaynu ka sheekayn doonaa waxaan ka duwanaan maanta ka hadlayno rajadaana oo idiin sidnaa laanna waxaa la yidhi lowla alamalu lanfadara alqalb haddaan raja jirin qalbigu u dildilaaca qalbigaa dildilaaca rajadaana waa idiin sidnaa in dowladnimo iyo dhaqaale iyo horumar uu soo muuqdo oo uu soo bidhaamayo taana ku bishaaraysta ugu dambeyn waxaan leeyahay midoobe midnimadu waxay ka bilaabantaa qoyska degmada gobolka stateka qaranka ha la midoobo reergado ha midoobeen gacmaha ha isqabsadeen ha walaaloobeen ha noqdeen markaa midaysantihiin baa cid waliba idin ixtiraamaysaa markaa midaysantihiin baa cid waliba idin jeclaanaysaa markaa midaysantihiin baa cid walba wax idin taraysaa